أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وان سلام يا قف كستا وحن نقول سلام يا منسب كيسا وحن سيجار وسلام يا قبلهن الصوماليات إن كستو تيرهان ما أنت إنه جيريهين وحن رجعنا يا كل ماذا كلنت إني قد على ما إني كراس ونكسن كويشان ما دام الدور كان كهاد لا يتهاي دور كدلن يراد الصوماليات كل يهين أما يكوي لن كران هو مركز دلك الصوماليات وحن أجنا هاي مركز دلن يرو lasoo hadal qaadaba waxa qofka ku soo dhacayso inuu san ahayn qof daa uu yahay daadii laga soo hadlay 20kii koowaad 20ka labaad inuu ku jiro yaa qofka ku soo dhacaysa waqtiga qofka waqtigaas ay ku soo dhacdana wuxuu ogaanayaa qofka waqtiga uu spiritual fit ka uu yahay uu caafimaad ahaan jir ahaan uu dhameystiran yahay uu og yahay inuu meel kasta uu ka boodi karo marka waxaan rabaa inaan fiirino dhalinyarada door noocay ku yeelan karaan horumarka dalkan ka hadlaynaa horumarka dalka markii aan ka hadlayno ma ka hadlayno politically what role does the youth have to politic ma ka hadlayno siyaasad ahaan dhalinyaradu maxay siyaasadda ku leeyihiin kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa dalka dhalinyarada maxay horumar u keeni karaan waxaan fiirinaynaa economically dhaqaale ahaan dhalinyarada maxay dalka ku horumarin karaan waxaan fiirinaynaa dhismo ahaan dhalinyarada maxay dalka ku horumarin karaan waxaan fiirinaynaa waxbarasho ahaan dhalinyaradu maxay dalka ku horumarin karaan adduunyada maanta aan joogno wadamada horumaray markaan ka soo qaadnay America iyo China waxay ku hormareen waxa kamid ah small enterprise business ku hormareen ganacsiyada yar yar ay ku hormareen waan aaminsanahay in qaarkiina mintiina badan hal abuurayaal aad yihiin waxaan ogahay amaan ogahay qaarkiina ka soo baxdeen jaamacad aadna diyaariseen heer jaamacadeed ama political science ama computer science engineering whatsoever it is laakiin at least jaamacada ka soo baxdeen waxaad leedihiin idinku abuuran hal abuura idinku abuuran waxa la rabaa qofka inuu fikiro yiraahdo war dalka Soomaaliya role intee aan ku leeyahay international relation aan soo bartay xiriirka caalamiga aan soo bartay inaan ogahay waaye dadka loo soo diraayo safiirada ah ama dadka ka shaqeynaayo maxaa interference ah oo faragelina ay dalka ku leeyihiin marka ogaado waa inaan baari kara what challenge that they create maxay aqabad iyagu ay abuurayaan inaan ogahay waaye maxaa opportunity anaga noo abuuri karaan وإن أجن هاي محل هذا برنامج كهذا هو coalition يعني وإسكاشي لأن يرد إني إسكاشدان معناه هذا واحد تاع لأن يرد فكر كودي أركتيو ضد إني إسكود درسدان مركب فكر كي أركتيو الله مدايو وحكسوا بحكر النتيجة في عنا كسوا بحكره لأن يرد أنت جوكتي أنت أورك كتير سني أنت ما أنت مرتدى أبو حقوق باقايا إن أي أورك محل هذا قيب كان نقدان أما يكسوا بيران مركي فكر كي عقلي الله مدايو يأخونت وحترتها qofka kaligiisa duu aqoontiisa guriga la galo oo la fariisto waxa ma soo ziyaadinayso marka horumarka dhalinyarada dalka waxaan ognahay masiiba dhacdo rabaaniya fatahaad oo kaleento ururka waa sheegeen way ka shaqeeyeen laakiin waxa jirta masiibada intaysan dhicin ka hor waa inay jirtaa prevention what is going on to happen maxaa dhici rabo kanaalka biyaha soo qaaday si u yaalaan prevention aa jirta in laga hortago hadii laga hortagi waan waxa jirta maxaa la yiraahdaa mitigation in wixii at least maxaa la yiraahdaa wax laga qaban karo marka waxa la rabaa in la isweydiyo dhalinyarada tahay in la isweydiyo wadanka xaquu ku socdaa waxa bariyahan wadanka ka jira maxaa la yiraahdaa political crisis dhibaato siyaasadeed ka jirtay urur dhalinyaro waa Soomaali u taagan yahay waxay ahayd in laga hadlo la yiraahdo war annaga marka maadaama dhalinyaro aan nahay wax dana nooguma jirto dalka inuu dib u dhaco wax dana nooguma jirto dalka in la isku qabqabsado in meediyaha email kasto laga hadli karo xalka la raadiyay ahayd musharaxiinta iyo cid kasto arimahaas ku lug la fariistay ahayd ramadaankii wixii waqti 10kii dambo qalqalka xamar ay gashay ama Soomaali ay gashay lama soo koobi karin wax kasta oo dalka qalqal gelin karo waa wax kasta oo anaga qalqal mustaqbalkeena gelin karo kaban hadii dalka 5 sano leh haduu dib u dhac ku imaan lahayd waxa dhici lahayd jaamacadda ka soo baxday marka lagu yiraahdo horseedaan ka soo baxay ama hormuudaan ka soo baxay ama UNISAN ka soo baxay ama whatsoever you call university ka soo baxday waxa lagu dhiilaa jaamacaddan ma aqoonsani fidi 91kii wixii ka horeeyay jaamacada way jireen jaamacadaas waxa dhumi lahaa marka value adi aan leedahay waxa soo baratay aqoontaadi waxa dhumi lahayd marka waxaan ku dadaarmayaa hadalkayga waa soo koobaya waqti badan aan qaatay hadalkayga waxaan ku soo koobayaa sida mas'uulkii horan halkan uu ka sheegay inaanan hal focus la saarin annaga isku filan
waxaan isugu filannahay aqoonteena iyo xooggeena iyo awooddeena iyo aragtideena haddaan isku geyno waxaan samayn karnaa wax waliba oo dalkan lagu horumarin karaan samayn karnaa dhaqaale muhiim ma ahan fakarka markaa la yimaad cid ku taageertaa helaysaa barnaamijkan waa dhalinyaro waxaa jira barnaamij JBS la yiraahdo ama waxaa la yiraahdaa waa youth development program waay UNDP da wado waxaa jira barnaamijyo kale oo dhalinyarada loogu talagalay youth development program la yiraahdo ama youth capacity building program la dhahaa dhalinyarada garaadkooda iyo aqligooda lagu kobciyaa just that information oo kaleento hadii maxaa la yiraahdaa connection la sameeyo walaalkay Faisal uu sheegay in meelo badan ay xiriir wanaagsan la sameeyeen hadii hore loo sii socdo waxa soo baxayso in aqoonta dhalinyarada ay kor noqoto waxtarkooda iyo awoodahooda ay wanaagsanaadaan golaha iskaashi cidii aasaastay iyo fikirka cidii ka dambeeysan aadan u bogaadinaya wax maalin iyo hal maalin ku kooban ma ahan waa wax mustaqbalka dhalinyarada dhalan doonto loogu talagalay in looga faa'iideeyo loogu adeego marka aad u mahadsantiin. Assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wabarakaatuh.